xogiyihii hore degmada Celifin ee gobolka Sanaag Cabdicasiis Salmaan Ismaaciil oo hordhac u ahaa wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee degmada Celifin ee gobolka Sanaag isagoo sheegay in bulshooyinka gobolka Sanaag diyaar u yihiin soo dhaweynta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalinta bari ay nagu soo wajahan halkan aan taaganahay waa afaafka hore ee degmada Celifin aad iyo aad waxa loogu diyaar garoobayaa soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdiga ballaaran uu wato ee ugu horeeyaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye Maxamed Kaan Axmed iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo dhammaan wufuudda kale ee ballaaran ee la socota safarka ay ugu soo baxeen gobolada bari gobolkan Sanaag gaar ahaan degmada Celifin aad iyo aad baa looga dareemayaa diyaar garowga soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminayo shacabkuna aad iyo aad buu soo dhaweynayaa una diyaar garoobay haday tahay garadag fadhigaab maxay ahayd ceel nimcoon Celifin imka aynu taaganahay aad iyo aad baa lagu soo dhaweynayaa diyaar garowgiisuna aad iyo aad buu u socdaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow dadkaagiyo nabada oo ku sugaya waxay suu kar lahayn muddo yar kooban oo ku soo maqan yahay maartay soo gaadhay degmada marka soo dhawow madaxweyne geesta kale xogayo hore Cabdicasiis Salmaan Ismaaciil waxa uu ka hadlay dhameystirka wadada Ceerigaabo iyo Burco isagoo ku amaanay wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland shaqada adag ay ka qabteen wadadaasi gabagabowday sidoo kale waxa uu fariin adag u diray xisbiga wadani isagoo ku tilmaamay mid guulaha qaranku gaadho lid ku ah xisbigaasi isku xidha Burco iyo gobolka Sanaag runtii wadada aad iyo aad baa wax looga qabtay waana himilooyinka uu qarankan u lahaa aad iyo aad bana lagu guuleystay xukuumadii kala horeeyay xukuumadii Axmed Maxamed Silaayo iyo xukuumadan dambe ee Muuse Biixi Cabdi oo barbilagu ay lahayd xukuumadii hore Axmed Silaayo xukuumadda Muuse Biixina ay dhameystirka lahayd runtii waa si fiican oo qurux badan baa loo dhameystiray maxay ahayd wadadu aad iyo aad bay wanaagsan tahay buundooyinka haday tahay eerashiyada haday tahay dhammaan meel qabyaa ma jirto muddo dheer buu aanu gobolkan u lahayn wado isku xidha Burco iyo Ceerigaabo maanta waa leeyahay waa loo dhameystiray waxaan rajaynaynaa maxay ahayd inay noqoto himilo Somaliland u hirgasha aad iyo aadna waa loogu najaxay waana la dhameystiray waxa la wax ka jira arrimaha propaganda suuqa la marinayo ilaa leeyahay waddan ma dhameystiraa iyo waxba laga ma qaban iyo waxa ku wari propaganda la sheegayo wax la wax ka jira ma jiraan gaariga yar aad aragtaan baan Burco ka soo baxay muddo yar oo kooban ayaan u soo socday Celifin oo 2 saacadood ilaa 3 saacadood ah alxamdulillah rabbil caalamiin habeen iyo lababa dhix jiray muddadii hore waqtiyadii hore aan wadadu jirin maantana in laga ka wadanno gaariga yar aan wadanna aad aragtaan inaan 2 saacadood ama 3 saacadood u soo soconno Burco ilaa Celifin wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye waxyaabaha qarankan u hirgalay ee guulaha qarankan ah in la dhaliilo ma fiicna qolada mucaaradka waxaan leeyahay warde maalin walba la soo taaganina wada xun oo maartay waa lagu guul dareystay ciidanka guul dareystay Soomaad garan wixii walba wadanka u hirgalay ama qaranka u hirgalay hadaa taa uu guul dareysta de maxaad xaga ayaa matashanayay soo hadlaysaan waxaan leeyahay wax kale ku kaambeen gareeya ummadda wax kale cod ku weydiista laakiin waxyaabaha lagu guuleystay qaranku wada leeyahay ee mucaaradku maraya muxaafidku maraya cid walba leedaan la kala lahayn ee halbowlayaashii dalka ah inaad wax walba taadaan ma jirto iyo waxba lama sameyn oo aad dafirtaan ma fiicna waa taas oo la maraya gaadiidkii raba maraya dhac dhan walba inoo dhaafaya alxamdulillah rabbil caalamiin protocol programkiina ka bedela arrimaha ku saabsan targetka ku ah qarannimada iyo wax qabadka dawladdu ay sameysay ka bedela idinku waxa qabanaysaan iyo ummadda waxa u sheegaysaan iyo waxa soo bandhigaysaan taa ka hadla walaalayaal waxa ogtihiin oo ogsoontihiin in xisbiga wadani protocol programkiisi uu ku soo koomay dhaleecaynta qaranka iyo inuu maalin walba cadowga reer Somaliland ugu bishaareeyo waxaan jirin isagoo sheegaya in qaranku halka uu ku fashilmay waxa hore ogaday ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dagaalkii uu galay ee gobolka Sool
isku dhici ka yimi shacabka reer Somaliland iyo ciidanka qaranka inuu maalin walba ku faraxsanaa uu lahaa ciidankii qaranka jabay ciidankii baa guul daraystay waxa kale oo ogeydeen aqoonsigii aynu waddanka dariska walaalahayna aynu kala saxeexnay MOU-gii in aad si diblomaasiyana iyo si aad propaganda oo xisbiga wadani uu xoog u saaray inuu hawshaas u fashilanto qarankana aan la aqoonsan waxa hadda ku xigta wadadii yareed ee gobolka Sanaag loo sameeyay ee ummadda reer Somaliland ay ku najaxday ee ay saacad walba maraan ee dhammaystirantay ee qaranku ku guuleystay ee mucaarad iyo muxaafidba uu marayo inay haddana leeyihiin waa lagu guul daraysta oo ay qaranka arintaa iminka ay maartay leeyihiin waa lagu guul daraystay waxaan leeyahay malaha kuma socotaan inaad noqotaan xusbi qaran ama rajaba kama leedina waddanka hogaamisaane shaqadiinu waxa weeye inaad jamhuuriyadda Somaliland iyo ummadeeda inaad lugta qabataan waa taa uu kufay waa jabay iyo waa dhaca waxaan leeyahay codka shacabka weydiista waxa wax ku dhaama ku weydiista political program ku weydiista waxa dhisaysaan oo waddanka u qabanaysaan oo soo kordhinaysaan laakiin shacabka reer Somaliland ha ugu bushaaranina maalin walba halkaas ay jaban iyo halkaas maartay ida xumaatay iyadoo waliba been tahay haday toosin haday ahaan lahayd waa sax laakiin waa been cad waad u jeedaan imka 2 saacadood iyo barbaan soo socday cilif weyn shalayna waxa la lahaa wadadii waxba kama jiraan ciduma marto marka waxaan leeyahay war political programkiina ida ka xunaan anaga idin sheegaynay hagaajista intii ay wadadan socotay muddada ay socotay wadadanu dhammaan mas'uuliyiintii waqtiga badan geliyay oo ugu horeeyaan mas'uuliyiinta magacooda soo sheegay iyo mas'uuliyiin hore oo ka horeeyay waxaan u samayn doonaa xaflado iyo maamuus iyo shahaado sharafooyin baan guddoonsiin doonaa nagama mudnaa inaanu tacabkoodii iyo dadaalkoodii iyo kartidoodii ay geliyeen wadadan ee naftooda u hureen ee gaadiidka iyo birta saaraan mar burcad tagayeen mar cirgaaba tagayeen ee waqtiyada qaar baabuurtu la dhacday oo ay isla rogtay inaanu aayarninaano waxa la waxay qabteen ma jirto waa arin qadafa waan idin ka raali gelinaynaa wixii aanu doonanay wax qabada doonanay noo qabataana si dhibirsana wanaagsan baan idin ku imanaynaa deegaan ahaan iyo waayeel ahaan iyo siyaasiyiin ahaanba waana nala qabanaysaan horena waa nala qaban jirteen aad iyo aadna waa mahadsantihiin baaldaha baa nagaga taalaan waxaan leenahay thank you very much